waxaa lagaa rabaa inay diyaar noo ahaato god aan ku duugno khaladaadka ay naga galaan dadka noo dhow. Nalka aad iibsatid dadka kalena waa ka iftiin qaataan. Haddii aan dembi ku dhacdid, ha la soo qaadin qofna ama ha u sheegin ama cidna ha u sheegin, maxaa yeelay bini'aadanka badankoodu wax ma qariyo ee Ilaahay ayaa wax qariya oo dhaafa. Haddii aad doontid in uu kaa joogsado welwelku, ha ka fikirin dhibaatooyinka ee fiiri nimcooyinka Ilaahay uu ku siiyey. Sirta oo aad gaaraysid waa arrinkaaga oo gacantaada kugu jira. Waayo aragnimadu waa shilo ay noloshu ku siiso marka ay timuhu kaa kacaan. Muhiim maaha inay dadku kugu qancaan waxa aad sheegaysid keliya. Dheh waxaad filanaysid inay sax yihiin. Samayso waqti aad naftaada ku raaligeliso oo aad u sheegto inay tahay mid wanaagsan, wax kastana qaban karta. Qof walba ayaa wax xun farta kugu fiiqi kara, laakiin wanaag dad yar baa arka. Ma dhici karto in aad gaartid guul wax ku ool ah adigu oo aanan kufin oo kicin marar badan. Haddii ay ku soo mari weydo jaanis guul aad ku gaarto, samayso mid aad ku gaartid. Haddii aad raadinaysid saaxiib bilaa ceeb ah, ogow waxaad noqon doontaa mid bilaa saaxiib ah. Inaad is-dhibaataysid waa furaha guul darrada. Saaxiibka dhabta ahi kii kula jecel wanaagga uu ku jiro markasta. Khaladaadku markasta u bato guul waa ku dhowdahay, maxaa yeelay khalad kasta cashar buu ku yahay. Mugdi kasta aad maraysid ha ka horraynin nal waddada ku ifiya. Waddada ugu fudud aad ku iloobi kartid wixii hore waa adiga oo ka fakara aayaha soo socda. Mugdiga adduunka oo dhani ma gaari karo hal xabbo shamac oo shidan. Abaalmarinta ugu fiican oo aad heshid markaad shaqo qabatid waa inay shaqadaadu si fiican u dhammaataa. Wanaaji xiriirka aad Ilaahay la leedahay, waayo guul-xumadu ugu horreysa ee nolosha wuxuu ka bilaabmaa inuu qofku ku guuldarreysto inuu la xiriiro Ilaahay. Fadlan ha iloobin inaad subscribe gareyso channelkan, wax badan ayaad ka faa'iideysaa.